habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin Paul Rusesabagina oo ah ninkii lagu matalay filimkii Geesi nolol badbaadiyay xasuuqii Rwanda ayaa lagu helay dambi argagixisanimo warbixin ayaynu idinkaga haynaa ninkaasi oo magaciisa lagu jilay filimkii Hotel Rwanda wararkeena kalena waxa kamid ah xogayaha arrimaha dibadda Britain ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo siideynta laba qof oo British ah oo ku xiran Iran marka ay dhigeeda Iran kula kulanto New York maanta hooyo inankeeda cadaalad u baadi goobaysa waxa uu kamid ahaa 26 ku dhintay burbur daran oo ku yimid dhismo qad cusub oo tareenka magaalada Mexico kadib markii darawallada tagaasida magaalada ku khasbanaadeen inay isaga tagaan COVID-19 dartii saqafka sare ee gawaaridooda ayaa qudaar lagu beeray dalka Thailand kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka nin lagu matalay filimkii Hotel Rwanda ee Geesi nolosha dad badan badbaadiyay intii uu socday xasuuqii Rwanda ayaa lagu helay argagixisanimo maxkamad ayaa ku heshay in uu galay dambiyo argagixiso la xiriira ninkaasi hotelka maamulaha ka ahaa oo lagu tixgeliyo inuu badbaadiyay boqolaal qof intii uu socday xasuuqii 1994 Paul Rusesabagina ayaa lagu eedeeyay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay iyo maalgeliyaha koox fallaaga ah oo weerar ka geystay Rwanda 2018 kuwaasi oo dilay ugu yaraan 6 qof Rusesabagina ayaa qaadacay maxkamadda isaga oo sheegay inuusan helin dhageysi cadaalad ah 20 kale oo isla dambigaasi ku eedeysna ayaa la xukumay filimka Hotel Rwanda oo Oscar loo magacaabay waxa lagu matalay Rusesabagina oo maamula hotel ah kaasi oo badbaadiyay in ka badan dad 1000 qofood oo halkaasi gabaad ka dhigtay hotelka qaar kamid ah kuwii badbaaday ayaa su'aal ka keenay arintan bal markana dib aan u eegno wixii dhacay intii xasuuqa socday 100 maalmood gudahood laga bilaabo Abriil 1994 800 oo kun oo intooda badan ka soo jeeda qowmiyadda Tutsiga ayaa waxa gowracay xagjiriin ka tirsan Hutuga wariyaha BBC-da Catherine Bayrohanga ayaa inoo haysa wixii u dambeeyay ee maxkamadda ka dhaca wuxuu joojiyay ka qaybgalka dacwadaha isagoo sheegay inuusan dareemin inuu ka heli doono cadaalad maxkamadda Rwanda laakiin dacwadan ayaa sii socotay maantana waxaa lagu helay dambiyo dhowr ah oo la xiriira falal argagixiso ah garsoorayaasha Rwanda ayaa sheegay in lagu helay dambi ah inuu asaasay koox hubeysan oo sharci darro ah oo lagu magacaabo xisbiyada xoreynta qaranka waxay sheegeen inuu sidoo kale maalgelinayay dagaalyahanadooda waxay leeyihiin kooxda xoreynta qaranku waxay dhowr weerar ku qaadeen koonfur galbeed Rwanda ay ku dhinteen ilaa 9 qof hantidoodiina la burburiyay kani waa sawir aad uga duwan kii aan ka haysanay Paul Rusesabagina ee filimkii Hotel Rwanda halkaas oo lagu tilmaamay inuu yahay geesi badbaadinaya boqolaal reer Tutsi ah kuwaas oo la bartilmaameedsaday intii uu socday xasuuqii Rwanda imankana waxaa stuudiyaheena Nairobi noogu soo biiray wariyaha BBC-da Xasan Sheekh Cumar oo la socday kiiskan حسن marka hore soo dhawow si dhawaad ula socotay marka xukunkan muxuu ka dhigan yahay Cismaan waad mahadsan tahay ninkan waxa uu ka ahaa gudaha dalka Rwanda nin caan ah isla markaana waxa aad loogu amaanay badbaadintii boqolaal qof xilligii uu socday xasuuqiga dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994 waxaa sidoo kale ficilka uu sameeyay ninkaasi uu soo jiitay shirkado caalami ah oo gaar ahaan kuwa sameeya filimaanta Hollywoodka waxaana laga sameeyay film dabcan loogu magac daray Hotel Rwanda ninkan aad ayaa dadku u aaminsanayeen isla markaana loogu amaanay tallaabadaasi oo gudaha iyo dibaddaba ka dhigtay nin aad loo yaqaano hase ahaatee maanta kiiskan maxkamaddu ay riday iyo xukunkan ay ku riday isagu waxa uu sheegay in aanu qayb ku ahayn laakiin waxa uu qirtay in fallaaga ka jirta dalka Rwanda oo u diray lacag laakiin aanu qayb ku lahayn weerarka lagu dilay dad gaaraya 9 qof oo rayid ahaa sanadkii 2018 iyo dabcan sanadkii ka soo horeeyay oo isna la sheegay
in dilalkaasi ay dhaceen ee 2000 waa sanadkii ka dambeeyay 2019 waa tahay xasanow hadda xukunkii wuu dhacay marka maxaa la gudboon oo waa la xukumay jidkee u furan hadda dabcan hadda waa la xukumay waxaana uu isagu sheegay inaanu gelin eedaha loo soo jeediyey dadkiisa ama ehelkiisa oo la hadlay BBC-da qaar ka mid a gaar ahaana gabar uu dhalay oo BBC-da la hadashay waxa ay sheegtay in qaabka loo maray xukunka la riday aabaheedna lagu riday uu yahay qaab aan sax ahayn oo aan cadaalad loo marin marka durba waxaa muuqata in dadku ay ka soo horjeedaan qaarkood gaar ahaana ehelkiisii waxaana ninkan u muuqdaa nin dabcan laba magac oo waaweyn huwan marka la fiiriyo waxaa lagu yaqaanay nin geesiya ah oo dalkaasi caanka ah haddana waxaa lagu eedeynayaa dembi dad inuu dilay markii horena dabcan waxaa lagu ammaanayay in uu dad badbaadiyey marka arrintaasi ayaa hadalhayn badan dhalisay hase ahaatee ilaa iyo hadda waxay dhaliilayaan dadkiisa iyo dadka ka soo horjeeda xukunkan in qaab cadaalada aan loo marin marka dabcan waxa ka imaan doona lama oga laakiin ilaa iyo hadda wax war weyn ah oo ka soo baxay waxa laga yeelayo xukunkiisa ma jiraan waa tahay xasanow horedhaca warbixinteenna waxaa ku jirtay dadka qaar inay su-aalo ka keeneen qaarkoodna hadda waxay ku tilmaameenba inuu siyaasadaysan yahay marka maxaa laga dhadhansan karaa xukunka ninkan aad wuxuu uga soo horjeeday madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame aad u dhaleeceyn jiray xitaa waxaa jirtay mar uu sheegay in loo baahan yahay isbedel in uu ka dhaco dalkaasi hase ahaatee waxa ugu weyn ee hadda lagu haysto waa in uu kooxdaasi dhaqaale u diray isla markaana sidaa dad lagu laayay marka waxay noqonaysaa dabcan in la sugo waxa ka imaan doona inkastoo dadku ay aad markii hore u ammaani jireen haddana dhaliishiisa ayaa weli taagan oo la leeyahay wuxuu ka qayb qaatay dilka dad rayid ah waad mahadsan tahay xasan sheekh cumar wariyaheenna oo istuudiyaha Nairobi nooga soo biiray mahadsanid xasan xogayaha cusub ee arrimaha dibadda UK Liz Truss ayaa ku baaqi doonta in la sii daayo Nazim Sagari iyo nin kale oo British Iran u dhashay oo lagu magacaabo Anousheh Ashori oo isna ku jira xabsi magaalada Tehran kadib markii 10 sano lagu xukumay waxa ay wada hadal kula leedahay dhigeeda xarunta qaramada midoobay ee New York qoysaska dadkoodu xiran yihiinna waxa ay sugayaan war farxad leh digniin warbixintan waxa ku jira muuqaalo laga naxo Farxaan Maxamed Jimcaale ayaana ka waramaya Elika Ashuri waxay u samaysaa buskud iyo doolshe xafladaha dadku ay qabaan laakiin iyada arooskeedii weli ma dhicin nolosheedii oo dhanna waxa bedelay xariga aabaheed mar walba waxaan isku mashquuliyaa shaqo sababtoo ah ma doonayo inaan soo xasuusto aabbahay ma ahayn siyaasi waa injineer dhinaca farsamada noloshiisa oo dhan wuxuu ka hormarin jiray aniga iyo walaalkay laakiin Agoosto 2007 isagoo Tehran ku booqanaya hooyadii ayaa Anousheh Ashuri la geliyay xabsiga ugu xun Iran ee Evin wuxuu ka mid yahay 12 qof oo reer galbeed oo ku xiran Iran waxa ku jira Nazanin Zaghari Ratcliffe qoysaskoodu waxay ku tilmaamaan in ay afduuban yihiin oo mas'uuliyiinta Iran ay u isticmaalayaan siyaasad iyo dhaqaale ahaan xabsiga Evin waa meel argagax badan qol kasta waxaa wadaaga 15 ama 20 qof waxaa ka buuxa jiir iyo baranbaro si adag ayay su'aalo u weydiiyaan waxay ugu hanjabeen inay anaga waxna yeeli doonaan waxay aabahay u sheegeen meesha aan degannahay halka aan ku noolnahay xayawaanka noo jooga aabahay wuxuu u sheegay inaanan hayn wax uu qirto 2 jeer ayuu isdili gaaray sababtoo ah wuxuu istusay haddii uu meesha ka baxo inaynan dhibaato noo geysan karin bishii hore waxaa si hoose loo soo gudbiyey muuqaal xabsiga laga duubay maxaabiistii hore ayaa sheegaya in caalamku aanu marnaba ka warhayn waxa ka dhacaya halkaasi Elika waxay ka cabsi qabtaa in aabaheed aanu soo bixi doonin ilaa Iran iyo UK ay ka gorgortamayaan sii deyntiisa waxaan ula jeedaa waa 76 jir 4 sano ayuu halkaasi ku jiray isagoo aan waxba geysan yaa loo qabsanayaa waxaa ku dhacay
elika waxaa aabbaheed uu ku taageeri jiray wax walba oo ay qabato. hawsha ganacsigayga ayaa waxay tahay inaan dadka lagala hadlo arooskooda, xafladaha dhalashadooda oo la farxad geliyo. taas ayaa sabab u ahayd inay igu adkayd inaan shaqadayda qabsado. ma doonin inaan dadka faraxsan wax u sameeyo, taas oo laga wanaagsan yahay. laakiin hadda waxaan ganacsiga iyo buskudkayga u isticmaalaa dadka farxadooda sababtoo ah waa iftiinkii rajada. maskaxdeeda waxaa ku jira oo ay qorshaynaysaa doolshihii ugu dambeeyey, midkii ay isaga u samayn lahayd marka uu soo guri laabto. markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeenna caawa. baarayaal ruusha ayaa sheegay in nin hubaysan uu ku dilay ugu yaraan 6 qof jaamacadda bam ee gobolka Urals. 24 kale ayaa dhaawacmay. booliska ruushkana waxa ay sheegeen in ninka weerarka geystay la xiray, balse wararka qaar waxay sheegayaan in la dilay. ardayda iyo macallimiinta ayaa isku xiray gudaha dhismaha jaamacadda, halka kuwa kalena ay daaqadaha ka boodeen. in ka badan 5,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay La Palma oo ka mid ah jasiiradaha Canaries ee dalka Spain. Volcano dartii dabka volkaanaha ayaa burburiyay guryo badan, waxaana samada isku shareeray qiiq iyo dambasta ka burqanaysa volkaanaha. ra'iisul wasaaraha Spain ayaa halkaa u duulay si uu dusha ugala socdo howlaha samata bixinta. duulimaadyadii ugu horreeyay ee dib loogu celinayo kumanyaal soo galooti ka soo jeeda Haiti ee sida daadka oo kale ugu soo gudbay xadka gobolka Texas ee magaalada Del Rio ayaa bilowday. mas'uuliyiinta waxa ay sheegeen in ay celiyeen 2,000 oo ka mid ah 12,000 ee ka soo galay dhanka Mexico ee halkaasi nolosha ka soo raadsaday, balse waxa ay sheegeen in weli dhowr kun ay degan yihiin buundo hoosteed. xusuusnow wararka telefishinka ee BBC Somali waxaad si toos ah hadda uga daawan kartaan barteena YouTube-ka ee BBC News Somalia, halkaasi oo aad sidoo kale ka heli kartaan warar iyo waraysiyo dheeraad ah. weli waxa inoo soo socdaan qaybta dambe caawa idinkugu haynaa kadib markii darawallada tagaasida magaalada ku qasbanaadeen inay isaga tagaan Covid dartii. saqafka sare gawaaridooda ayaa qudaar lagu beeray dalka Thailand.
caawiya caalamka ayaad weli daawanaysaan aan idin xusuusiyo qodobada wararkeenna ugu waaweyn. Paul Rusesabagina oo ahaa ninkii lagu matalay filimkii geesi nolol badbaadiya xasuuqii Rwanda ayaa lagu helay dambi argagixisanimo. xogayaha arrimaha dibadda Britain ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo sii deynta 2 qof oo British oo ku xiran Iran marka ay dhigeeda Iran kula kulanto New York maanta. baaritaan horodhac ah oo la xiriira burburka dhaba tareen oo ka mid ah qadadka tareenada magaalada Mexico City oo ay ku dhinteen 26 qof bishii May ayaa lagu ogaaday in ay jireen qaladaad culus oo ku aadan hanaanka dhismaha qadadkaasi. dadka cadaadiska uu saaran yahay iyo fartana lagu fiiqayo waxa ka mid ah duqii hore magaalada Mexico City Marcelo Ebrard oo ka mid ah ragga dunida ugu taajirsan iyo nin kale oo dadka dunida ugu taajirsan la yiraahdo Carlos Slim kaasi oo shirkadiisu dhistay dhabahaasi. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa weli ku sameynaya baaritaan inay jiraan dambiyo dhanka mas'uuliyadda ah, laakiin qoysaska dhibanayaasha shilkaasi ayaa dareensan in cadaalad lala tigsado dadka ugu awoodda badan Mexico ay tahay mid aan sahlanayn. Mawlid Xaaji Cabdi ayaana ka waramaya. waxaa loogu yeeri jiray dhabaha dahabiga ah ee magaalada Mexico. muuqaalkan sida casriga ah loogu talagalay khadka 12aad waxaa lagu sheegay in uu yahay kan ugu cusub ugu nadiifsan ahna qadka tareen ee ugu amniga wanaagsan caasimadda. maamulka magaalada ayaa ku andacooday in dhabahaasi uu ahaa mid lagu dhisay tiknoolajiyad casri ah. qadka 12aad hadda waxaa lagu sifeeyaa masiibo. 26 qof ayaa ku dhintay burburkii aadka u xumaa ee dhacay bishii May. Brandon Gioviani wuxuu ahaa dhibanihii ugu da'da yaraa 12 sano ayuu jiray. hooyadiis Marisol waxay la tiiraayeensan tahay geerida wiilkeeda. markaan arko qolkiisa oo cidla ah ilmihii kale oo iskuulka ka soo laabanaya isagana aanu ku jirin, taasi waa wax aanay dawladdu dareemayn. magdhow kasta iima soo celin doonto wiilkayga. wax yar uun kadib furitaankii qadka 12aad waa la xiray bilooyin si loogu sameeyo dayactir degdeg ah. qoysasku waxay sheegayaan in mas'uuliyiintu ay wax ka ogaayeen inta uu la eg yahay tayaxumada qadka ayna iska indhatireen dignina lagu celceliyey. Marisol waxay ku adkaysanaysaa cidda eedda leh. waxay magacaabaysaa guddoomiyaashii hore ee Mexico City Miguel Angel Mancera iyo Marcelo Ebrard iyo kan hadda Claudia Sheinbaum. waxay ku soo oogtay dacwad la xiriirta dayac. BBC-da oo saddexdooda xiriir la samaysay waxay noo sheegeen inaanay wax hadal bixinayn inta baaritaanka xeeraryaha guud uu socdo. burburkii foosha xumaa kadib qoysaska dhibanayaashu waxay sheegayaan in la iska indhatiray ayna baqdin geliyeen mas'uuliyiinta magaalada, maadaama qaar ka mid ah kuwa ka dambeeya qadka 12aad ay ka mid yihiin dadka ugu awoodda badan uguna saamaynta badan Mexico. awooddaas iyo maalkaasi waxay ka muuqdeen xafladii furitaanka qadka 12aad ee 2012. ganacsadaha bilyaneerka Carlos Slim oo shirkadiisu ay dhistay dhabaha tareenka ayaa markaasi waxa u sacabtumayay duqii hore Ebrard oo hadda ah wasiirka arrimaha dibadda ee Mexico. dukumeentiyo dhawaan la daabacay ayaa muujinaya in shaqada si degdeg ah lagu dhammaystiray intii Ebrard uu xafiiska u joogay. Bueno, yo diría que hubo prisas. waxaa lagu dhisay si degdeg ah. waxaa jiray isbeddel ku yimid mashruucii asalka ahaa. dhammaan isbeddelada waxaa lagu fuliyey si degdeg ah, laga bilaabo dhismaha laftiisa ilaa soo iibinta tareenada. waxaa si lama filaan ah uu isbeddel ku yimi farsamadii tareenada. laga soo bilaabo gurigeeda yar oo hadda cidla ah oo aanu joogin Brandon, Marisol waxay damacsan tahay inay cadaalad u raadiso wiilkeeda, laakiin cadaaladda Mexico waa dhif. baadigoobka jawaabaha iyo ciqaabta dayacaadda ku salaysan waa un bilow. maxkamad ku taalla Indonesia waxay ku amartay madaxweyne Joko Widodo iyo saraakiil kale ee sare ee dawladda ka tirsan inay sare u qaadaan wax ka qabashada wasaqowga hawada halista caafimaad ee ay u leedahay caasimadda Jakarta. shacabka ayaa ka walwalsan saameynta wasaqowga hawada ee caafimaadkooda, waxa ayna bilaabeen in ay qaadaan tallaabo dhanka sharciga ah 2019. waxaana warbixintan soo jeedinaysa Bella Sheego. halkani waa Jakarta. in cirka buluugiis la arko waa naadir. magaalooyinka waaweyn hawadooda sumaysan ayaa saameyn weyn ku leh nolosha dadka.
untuk anak saya. ilmahayga ugu yar waa 8 jir arrintan si weyn ayay u saamaysaa caafimaadkeeda Tahun itu ternyata cukup membawa masalah di kesehatannya. jakarta waxay leedahay hawada ugu wasakhaysan koonfur bari aasiya qaran ahaan indonesia waxay ka mid tahay 10 dal ee dunida ugu wasakhaysan oo ay weheliyaan bangladesh bakistan iyo indiya baarayaasha jaamacadda chicago ayaa hadda ka digay in neefsashada hawada jakarta ay ka goyn karto ilaa 5 sano celcelis ahaan cimriga qofka degan waxaa cad qiyaasta ah inay jirto faa'iido weyn oo bulshada indoneesiya ugu jirta haddii dadka siyaasadda dowladda dejiya ay go'aan gaaraan ayna soo saaraan isla markaasna si adag loo fuliyo siyaasad huwan nadaafad heer sare ah jakarta waa xudunta qiiqa baabuurta warshadaha iyo dhirta dhuxusha laga sameeyo qiiqa ka imanaya dhammaan baabuurta ayaa ah dhibaatada ugu weyn laakiin xeeldheerayaasha deegaanka ayaa sheegay inay sii kordhayso wasakhowga ku habsaday jakarta uu ka imanayo meel ka baxsan magaalada waa warshada korontada ee dhuxusha laga shido sida laga soo xigtay warbixinta tayada hawada adduunka ee ugu dambeysay celcelis ahaan indonesia waxay 4 ilaa 5 jeer ka sarreysaa waxaa loo arkay inay tahay hawo caafimaad leh sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka koox ka mid ah dadka degan jakarta ayaa ka walaacsan caafimaadka qoysaskooda waxay dacwad ka gudbiyeen madaxweynaha indonesia iyo barasaabka jakarta iyo kuwo kale iyagoo ku dacweeyey dayacaad iyo inay ka gaabiyeen wax ka qabashada wasakhowga mid ka mid ah dadka degan veronica ayaa go'aansatay inay qaado dariiqa sharciga ilmaheeda dartood waxaan u tagnay dhaqaatiir dhowr jeer mid ka mid ah ayaa noo sheegay in ay sanka barar ku leedahay oo la yidhaahdo rhinitis subax kasta indhaheedu way biyeeyaan aad bayna u hindhistaa kadib markii ay dagaalamayeen in ka badan 2 sano oo ay maxkamaddu socotay waxay maxkamaddu xukuntay in madaxweynaha indonesia gudoomiyaha jakarta iyo kuwa kale lagu helay dambiye ah dayacaad la xiriirta la tacaalida wasakhowga go'aankan ayaa noo roon haddaan nahay dadka degan jakarta waa inaan caddayn haysanno taasina waa aaladda aan ku dalban karno inaan la xisaabtanno dowladda mustaqbalka madaxweynaha ayaa la faray inuu kor u qaado heerka tayada hawada ee qaranka waxaana gudoomiyaha jakarta uu helay amarada ugu badan ee maxkamadda si kor loogu qaado tayada hawada magaalada haddaba kiiskan taariikhiga ahi ma ka dhigi karaa hawada jakarta mid nadiif ah haddana wararka cayaaraha ee caawa kubadda cagta shalay iyo horyaalka ingiriiska Chelsea ayaa sii wadatay rikoorkeedii ahaa 5 ciyaar inaan laga badin Tottenham ay 3-0 kaga badiyeen hadda liiska horyaalka ingiriiska iyaga ayaa ugu sareeya Manchester United waxay 2-1 ku tuntay West Ham halka xawligii ay Brighton ku bilowday xilli ciyaareedkana uu weli sidiisii yahay iyaga oo Leicester 2-1 kaga celiyay inay liiska booska afraad ka galaan hayeegii kubadda cagta reer Brazil Pele waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in maalin kasta waaga uu ugu bariyo rayn kadib xanuunkiisii ugu dambeeyay 80 jirkan oo 3 jeer koobka dunida qaaday waxa uu rantii bishan galay qalliin looga sameeyay xidmaha jimcihii ayaa dib loogu celiyay qaybta daryeelka degdega balse waxa uu sheegay in uu soo kabanayo uu fiican yahay beero dhulka baxo ayaa taqiinay kuwa saqafka ka baxa ayaan caawa idin haynaa dalka Thailand shirkad tagaasida ayaa la yimid hab lama filaan ah oo ay uga faa'iideysan karaan gawaaridooda shaqo la'aantu ay saameysay aafada viruska corona dartii shaqaale 2 shirkadood ayaa waxa ay hirgeliyeen beero yaryar oo qudaar laga heli karo inkastoo ay arintaasi dareen gelisay mustaqbalka taksiilayaashii hore baabuurtaas u wadi jiray waa kan maxamed xaraare oo warbixinta inoo eega tagaasidani waxa ay heleen rakaab cusub waa basbaas basal qajaar yaanyo iyo kabsar markii fayraska corona uu ku dhuftay Thailand waxaa la soo rogay sharciyo adag oo darwallada tagaasida baday shaqo la'aan intooda badan caasimadda ayay isaga tageen iyagoo gawaarida xareeyay intii ay gawaaridu daxalaysan lahaayeen si iskaashatooyinka darwalladu waxa ay go'aansadeen in si kale loo isticmaalo shaqaaluhu waxay in yar lacagtooda ku maalgeliyeen in ay soo iibiyaan dhir qof kasta gacan ayuu ka geystay dhirtani waa raqiis si sahlan ayayna ku baxdaa
khudaartan waxaa loo isticmaalaa in shaqaalaha ay munaafacadsadaan waxa yar ee ka soo harana waa la iibgeeyaa tailan sanadkii 2020kii howl badan kadib waxaa suurto gashay in tirada kiisaska fayrasku ay yaraadaan laakiin tan iyo bishii abriil ee sanadkan nooca dalta ee fayraska ayaa sababay in kiisasku ay ka bataan 1.3 milyan iyadoo ay ku dhowaad 14,000 oo qofna ay geeriyoodeen dalxiiska dalka iyo gaar ahaan caasimadda Bangkok ayaa si weyn isku dhimay wadooyinka cidlada ahna tagaasilaydu ma mahadin gawaaridani waxay u badan tahay inaanay mar dambe rakaab qaadin laakiin laga yaabo inaanay howlgab noqon waa tusaalaha beeraha saqafka ka baxa ee 2021 dadka booqanaya magaalada Venice ayaa intooda badan waxay maqli doonaan muusiga qaraami ah marka ay dul sabaynayaan biyaha magaaladaasi Talyaaniga ee kanaalada caanka ku ah doon loo sameeyay sida qalabka muusiga la yiraahdo violinka ayaa dhex socda biyaha iyadoo koox muusikiisyaalana ay saaran yihiin doonta 12 mitir dhererkeedu yahay waxaa dhisay farshaxaniista deegaanka u dhashay waxa uuna ku xusayaa dadkii u dhintay COVID-19 iyo inay tahay astaan dib u soo noqoshada una soo kabsashada magaalada xusuusnow wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali oo haddaba YouTube-ka toos nooga daawanaysa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaan kulmi doono nabadgelyo habeen dambe